waxaan anigu dadka u ballan qaadaya codkaysiinaya inaan ahaado qof ka dhabeeya ballan kastuu qaaday waxaan ku shaqayn doonaa rayga iyo soo jeedimaha shacabkayga waxaan noqon doonaa qof shacabkiisu aanay ku dhimadan inay gaadhaan oo ay wax u sheegaan waxaan noqon doonaa qof ay meel walba ka helaan xafiiska ka helaan wadada ka helaan degmada ka helaan xaafadda ka helaan garoomada dhalinyadu ku ciyaarsa laga helo qof aan lagu dhib mudan in talada iyo tusaalaha iyo wax la doonay in loo sheego aan lagu dhib mudan in la gaarsiiyo waxaan noqon doonaa qof aan waxaan noqonayaa people smile haddii aan guuleysto waxaan noqonayaa maayarkii dadkan baan noqonayaa dadkan la joogayaa dadkan la xukumayaa dadkan la qurxinayaa dadkan la nidaaminayaa dadkan la beerayaa dadkan la xaadhayaa shaqo kasta oo dawladda hoose qabato ma qabanayno anagu kaligayo waxaan la qabanaa shacabkayga waan wadanaynaa bilow ilaa dhamaad ballantan qaadayana Faysalow way ka duwantay ballantii hore loo qaaday fahamka laga haysto qofka siyaasiga anu siyaasada waxaan soo galay inaan bedelo fahamka laga haysto qofka siyaasiga anu waxaan dadkayga tusi doonaa nooca siyaasiga dhabta ah ee isbedelka horseedaya uu yahay ayaan tusi doonaa dadkayga waxaan ka arki doonaa shaqadayda waxay ka arki doonaan halkan ugu tago waxay ka arki doonaan halkan la fadhiisto waxay ku arki doonaan saan shaqada ula qabto waxay ka arki doonaan saan u kaxaystay shacabkayga isida iyaga ayaa qaadaya anigu dadkayga baan haystaa waa laga yaabaa inay ilaa iyo guusha isidaan waa laga yaabaa inay idhigaan dadkayga u deynaya laakiin intaan soo urursado xoolo soo amaahdo guryahayga iibiyo dabeetana ummadda cod ka dooni maayo dabeetana markay doortaan intaan hantidooda qaato wixii aan amaahadii iyo guryahaygan xaraashay dib uga iibsan maayo anigu waxaan imanayaa aniga oo aan deyn soo gelin ayaan imanayaa dabeetana waxaan u shaqeynayaa daacadnimo waxaan u shaqeynayaa saacadaan waligood loo shaqeyn waxaan u ilaalinayaa ammaanadooda waxaan u bedelayaa magaaladooda anigu taasaan u taaganay dadkaygana waxaan leeyahay haddaad madax wanaagsan doonaysaan madax wanaagsan waa inaad ku doorataan codkiinuna iib maaha in la caayo shacabka reer Soomaaliland gobta in la caayo maalin walba nin baa lacag sito hebel lacag ma haysataa oo si lagu doorto maxaa lacag ma sidataa si lagu doorto oo waxta xagga sharciga marka loo noqdo dadka codkooda in la iibsado waa sharci darro waa dembi weyn baana shacabkan laga galaya war dadka reer Soomaaliland waa dad goba waa dad qaniya iyagu waa sabool shaqo looma abuurin oo magaalooyin looma dhisin oo fursado looma sameeyo dalkoodii looma horumarin laakiin waa dad qaniyo goba marka dad la iibsan karo maaha waxaan ahaa siyaasi madax bannaan oo aragtidiisa siyaasadeed madax bannaan oo aan saddex xisbi midna aan ku jirin laakiin bishii August 4teedii markii aan go'aansaday inaan noqdo musharax u taagan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa maadaama aan loo ogolayn musharax madax bannaan waxaan ku khasbanahay inaan saddex xisbi jira mid kamid ah ku biiro iska dhex sharaxo waan ogahay muddo fara badan baan ka soo jeeday siyaasadda iyo jiritaankooda iyo sida u jiraan laakiin siyaasadda laftigeeda ahba in la soo kala horjeedo aragtidu ay kala duwanaato waxa xaqiiqo dad fara badan oo ku jira kulmiye iyo cudiye wadani iyagoo xisbiyada ku jira haddana in badan dhaliilaan aragtiyaha xisbiyada ka dhex jira waa xuquuq qofku iska leeyahay inuu aragti ka duwan aragtida kuwa markaa xisbiga ku jira inuu yeelan karo markii 4tii bishii August aan ku dhawaaqay musharax ahay u taagan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waa xuquuq dastuuriye weeye marka waxaan ku khasbanahay saddex xisbiye jireen mid kamid ah ku biiro wada hadalaan la furay asxaabta qaar waan wada hadalay waanu kulanay waxaan doonayo waanu sheegay xisbina wada hadalkiisa baa wali noo socda waa soo gabagabeyn doonaa go'aan baan qaadan doonaa xisbi aan raali karnayna waan ku biiri doonaa shacbigana waxaan u sii sheegayaa inay mid ila fahmaan xisbigu qofka ma bedelo qofka ayay tahay inuu xisbiga bedelo insha Allah ta'ala wixii aan xisbiyada ku diidanaa markaan ku biiro insha Allah ta'ala waxaan ku dadaali doonaa xisbiyada meelihii aan ku diidanaa inaan wax ka qabto wax ka bedelo misana qabiilka ma qabiiladu marka qabiilka sida xun loo isticmaalo siday saameyn ugu leedahay inuu helo maamul suuban dawlad wanaagsan madax wanaagsan waa aragtidayda waanan ilaa imikana waan aaminsanahay waxaan isleeyahay hanka horta aan silaa waa han qabiil ka weyn musharaxnimada aan u sharaxanay magaalada Hargeysa golaheeda deegaanka marka dambe aan doonayaan maayirkeeda soo sharaxana waxyaalaha aan u taaganahay dadkayga aan la hor imanayo waxa weeye ummadda reer Hargeysa inaan mideeyo qof doonayo inuu ummadiisa mideeyana qabiil ma cuskan karo salaan qabiil ma soo fuuli karo marka anigu waan ku khasbanahay ama aan ku helo ama aan ku waaye inaan maadaama hankayga aanu qabiil qaadi karin inaan noqdo qof aad uga durugsan inuu qabiil isku sharaxo anu aragti baan sidaa riyaan sidaa
hankayguna uu ka wan yahay maaragtay han qabiil qaadi karo hargeysa dhammaan rabaa inay hankayga qaato dadaalkeedan la iman doonaa barnaamijkaygan dadka la hortagi doonaa hooyo kasta aabba kasta iyo qof kasta oo dhalinyaro ah baan la fadhiisan doonaa barnaamijkan ka iibin doonaa halkan tolay ka iibin lahaa waan ka bayrayaa jidkii ahaa in tolay kursiga lagu fuulo waxaan u bayrayaa in aragti iyo barnaamij iyo riyooyin lagu fuulo kursiga hankana sidaan igu khasbaya inaan wadada maro waan ogahay labada wada inay kala fudud yihiin haddaan maanta tolay yiraahdo tol wanaagsan baan leeyahay qabiil fiican oo runtii sharaf labaan ka dhashay laakiin hanka aan sida kuma filla marka anigoon ka tagin ixtiraamka anigoon ka soo horjeedin qofku inuu garasho iyo qabiil ka soo jeedinaya shay tahay laakiin riyadan aan sido riyo uu qabiil qaadi karaya maaha way ka weyn tahay qofkuna sideedaba hadduu han weyn leeyahay hankiisa salaankiisa qabiil hanka salaan uga dhigi karo qabiilka waxaan leeyahay ummadaydu waa inay kortaa 30 sanadood in ka badan ayay qabiilka wax ku soo dooranisay halkaynu ku naalay qabiilkuna dhigana way aragtaa hadaynu u guurno 30 sano 30kii ka horeeyayna iyana halkay qabyaalada iyo qabiilku dhigtay qarankii dhammaay Soomaaliyeed waynu aragnaa oo ilaa maanta ka soo kaban lahayahay ummadahan hadda ilaahay garaadkii garashada wuxuu inoo siiyay inuu qarano waxaynu soo isticmaalay inuu soo tijaabin hadii shaqeyn waayo waa in laga bayraa in qofka siyaasiga uu mar walba jidka fudud ee tolaayir ka doorto jidka adag waa ayaan darway inagu waxa way kartideena ku kalsoonahay waynu dadaali doonaa dadaalkeena waxba la hadhi mayno jidka dheer ee qodxaha badan ee dhagaxaanta badan ee imtixaanka badan ayaan ka doortay jidka dhibta yar ee tolaayida kaasaan maraya haddaan guulaysto ummadaydo dhanba ay guuli u soo hoytay haddaan guul daraystana ka iga dambeeya meel uu ka qaado oo uu tilmaamo waran halkaasaan dhigay halka ka sii qaad ayaan dhigi doonaa waan ku boorinayaa ragga iyo dumarka sharaxaya inay geesinimo la yimaadaan qabiilka inay iska daayaan qoloqolada inay iska daayaan xaafadka ololeynta inay iska daayaan wadad wanaagsan oo goboba jira xaafado kala duwan ku nool dadka in la gaaro weeyaan hargeysa way balaaran tahay Soomaaliland way balaaran tahay qabiil qulina ma dego Soomaaliland qabiil qulina hargeysa ma dego anagu waxaan la fadhiisanaynaa qof kasta waanu u gaadhaynaa qof kastana waa la fadhiisanaynaa qof walbana luuqadu fahmi karayo ayaanu kula hadlaynaa ololaha iyaga iyo xilliga campaign-ka guri walbana waan tagaynaa hooyo wal iyo qof kastana qof walbana da'diisa intu fahmi karayo ayaanu kala hadlaynaa marka insha Allah ta'ala inta taageerada indhalgaradkana taageeray iyo dadkayga kale oo aan gaadhayo dadaal weyn u galayo inaan dadkayga gaarsiiyo barnaamijkeedii iyo aragtideedii waxaan u taaganay labadaas aan doonayaa inaan midayo dabtana guushay marka sida ku gaadhina marka de waqtina waynu haysanaa in imka ololo weyn oo silent campaign oo aamusan baynu wadnaa haddii dadkayga reer Somaliland ama dadka gaar ahaan dadka ku nool caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland marar badan la hor yimi oo hadallo qurux badan la hor yimi oo ololayaal qurux badan la hor yimi oo dabeetana dadkii ay moodayeen inay nolol sameynayaan magaalada u dhisayaan ay doorteen oo ay ballan qaadyadii dadkaasi ay sameeyeen ay rumeeyeen